walaalayaal muslimiinta waxaan la hadlaynaa caalamka geesihiisa kala duwan joogta waxaan u sheegaynaa meeshaan aan joogno waa beyd ilaahay waa masaajid ilaahay oo aan dhismo ku bilownay markaan marayno meeshaas aad arkaysaan ayuu masaajidka lacagtiisii naga go'day injineerkii masaajidka bilaabay wuxuu ku qiyaasay lacagta galaysa 45,000 oo dollar sidaa darteed waxaanu helay 23,000 oo dollar waxaan nagu hartay oo nagu dhiman oo masaajidkii uu la socon lahayd lacag 22,000 oo dollar sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa muslimiinta meel kasta ay joogaan caalamka daafihiisa kala duwan inay masaajidkan ay nagala qayb qaataan oo nala dhisaan ayagana waxaan ugu ducaynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadata ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu jannada guryo uga dhiso ballanqaadkaasna waxay ka haystaan nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man banaa masjidan lilaahi bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofkii masaajid ilaahay dartii u dhisa ilaahay guri buu jannada uga dhisaa ilaahayna ballanqaadkiisa wuu oofiyaa ballanqaadka ilaahay wuu oofiyaa subxaanahu wa ta'aala mana soo noqdo ilaahay hadduu guri jannada kaaga dhisana cadaab ma arkaysid oo ballanka ilaahay wuu oofin masaajidkan waxaan ka codsanaynaa in aad nagala qayb qaadataan muslimiinta meel kasta aad joogtaan 22,000 dollar inaad naga bixisaan ilaahay subxaan annaguna ducaanu iyo meeshaan si aad ogtiin waa xiro qaxooti waxaan joognaa xirada dhagaxliiba masaajidkan laga dhisayaa dadku waa dad iska tabar yar xoolo badan iyo dhaqaalo badan aan haynin intaanba tabar iyo dadaal iyo waxay ku soo gaadheen juhdi marka dadka muslimiinta waa wax ku fudud haday ka qayb qaataan nin walba istidaacadiisa iyo karaankiisa waxaan kaga ducaynaynaa cid kasto ka qayb qaadata oo mu'min ah oo muxsin ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala badalkiisa inuu guri jannada uga dhiso amiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaadiisa ilaahay inuu u barakeeyo amiin caafimaadkiisa ilaahay u barakeeyo amiin meeshii hantidaas uu ku bixin doono masaajidka uu ka soo bixiyay mid ka badan ee ka baraka badan oo sababteeda janno ku galay ilaahay inuu maartay ugu bedelo amiin kurbada haysa nooc kastaba ha ahaato ama aakhira ha ahaato ama adduunyo haysata ilaahay inuu ka dulqaado amiin meelo badan oo muslimiinta inta badan waxay iska caawiyaan dibadaha iyo meelaha dadka jooga culaysyo badan baa haysta ilaahay culayska inuu ka qaado diintooda ilaahay inuu xifdiyo caafimaadkooda ilaahay inuu u xifdiyo walaalayaal ka soo qayb qaata inama ya'muru masaajid allahi man aamana billahi wal yawmil aakhir masaajida ilaahay waxa camira qof ilaahay rumaysan aakhirana rumaysan ama cibaadaha ku camiro ama dhismaha ku camiro في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال إلهي وحليه وقريو إلهينا وأمري إن لا دسو وشأني وذكر له قاضو أنت أصلا كجبه يا علم مساجد كان الله دسو وحي كم تهي شاعرة إلهي ولا ويني وايو وبيت كيسي مركا وحان رمنا مسلمين تمل والباء جوكتين إن أسو قرمتان مساجد كان أو هل كان ومرايو أنا جنا إذن سو دعينو أن أسو دعينو عرورتينا شغدان إذن كوكو سو دعينو caafimaadkan idinkugu soo duceyno oo muxuu ahay xilkan iyo mas'uuliyaddan iyo culeyskan oo maanta anagu beedka ilaahan ula taaganahay inaad nala garab gashaan oo muxuu ahaa ilaahay xaqiisana ajar janno aad ka heshaan annagana aad naga farxisaan oo mas'uuliyaddan culeyskan nala qaadaan oo maartay duco aad naga heshaan waxaad ogsoontihiin maanta dunida cudurro fara badan baa ka jira oo dadka oo dilooshay oo uu ka mid yahay kansarka uu ka mid yahay covid-19ka oo ka mid yahay muxuu ahaa cudurro badan oo halis ah cuduradaas oo dhan maanta waxaan ugu badbaadi karnaa inaan sadaqa aan la baxno oo ilaahay dartiisa aan ugu carno beedka ilaahay aan dhisno oo dadka aan caawino kali waxaan ku badbaadi karnaa sadaqada ayaan ku badbaadi karnaa waxaad ogsoontihiin qofka markii dadka oo ay dhintaan oo aakhire la geeyo waxay ku shalaynayaan ilaahayow hal mar leemaa ee celisid oo maartay saacado ma dib ii dhigtid maxay dhahayaan marka lawlaa akhartani ilaa ajalin waxay dhahayaan fa asadaqa saan wax u soo sadaqaysto maadaama xilliga sadaqada loo shalayn doono walaalayaal hadda aan la baxano sadaqada hadda aan la baxano marka wixii aan dhihi lahaa iyo wixii aan sheegi lahaa khayr Allah siiyo culimada hore u sheegtay wax waqti badan iyo maartay cilmi aniga hadda aan ku soo kordhinayo ma jirto kale waxaan u duceynayaa aan ka codsanaynaa muslimiinta meel walba ay joogaan inay maartay ay soo gurmadaan masaajidkan u soo kaalmeeyaan waxaan leenahay ilaahay cimrigan ha dheereeyo muslimiinta intii hadda dhistay ka qayb qaadatay iyo inta ka qayb qaadan doonto ilaahay oo maartay caruurtii idan wanaaji
ilaahayow cuduradan inkaarna ummadda dilooday ilaahu idinka badbaadi oo qof walba muraad buu leeyahay muraadkiisa ilaahu u sahel qof walba meeshii ka ooman yahay ilaahu ka waraabi sadaqada wixii aad u niyeysatay ayaad ka helaysaa qof walba wuxuu u niyeystay oo khayr kii guur rabo kii ganacsi rabo kii dan kala gaar u leh qof walba wuxuu u niyeysto oo janno u weyntahay ilaahay ha u sahlo kuwii hadda ka qayb qaadan doonay kuwa ka soo qayb qaatay dhammaan walaalaha muslimiinta meel kastoo joogtaan waa idin salaannay meeshaan idinkala soo hadlayno waa dhagaxley dhadhaab gaar ahaan dhagaxley balooga G9 masaajidka Umulqura waa masaajidka aad arkaysaan muddo bil iyo hoogo uu istaagan yahay wuxuu ku istaagayna waa kharash la'aan qiimeyntiisa hore waxaa lagu qiimeeyay $45,000 $2,300 waa helnay $2,200 baa dhiman baa la yiri qiimeyntiisii marka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa dal iyo dibad meesha ay joogaanba inay masaajid $22,000 inay masaajidka nala dhameystiraan ilaahay dartiisa noola dhameystiraan ama waalidkood ha u hormarsadeen ama iyagu ha hormarsadeen adduun iyo aakhirana ha ku liibaaneeyo marka insha Allah walaalaha dhammaan waxaan ka codsanaynaa nin walba tabartiisa iyo taagtiisa inuu masaajidka ku soo darsado masaajidka uu dhaqaaqo nalala dhameystiro meesha uu joogo waad arkaysaan muddo bil iyo hoogo wax shaqo lagama qaban hada wuxuu sugayana waa muslimiinta marka insha Allah culimada iga dambeysaan insha Allah ku wareejin doona waxaan idinka sugaynaa waa gurmad degdeg ah iyo wax isla qabasho insha Allah adduun iyo aakhirana Allah idinku gargaaro ilmihiina reerkiina cimrigeena insha Allah Allah ku barakeeyo abaalkiina janno Allah ka dhigo insha Allah kaatu magacayga waxa la hayaa Yacquub Faarax Sahal waxaan ku sugannahay xarada dhagaxley waxaan ka bilownay masaajid baa meeshan ka bilownay masaajidku waxa ku dhagan madrasada waxa dhigataa 400 oo caruur ayaa dhigataa masaajidka xaafadda ayaa u baahan ganacsato ahaan reer dhagaxley anaga waan istaagnay intii karaankeena waan bixinay masaajidku waxa lagu qiyaasay lacagtiisa $46,000 inay ahayd $45,000 inay ahayd hadda lacagta dhiman 22,000 waaye marka insha Allah waxaan la hadlayaa dal idibad waxa jooga gaar ahaan waxaan la hadlayaa dadka dhagaxley ka dhoofay waxaan leeyahay meesha waa gurigeeni waa inaan u kaalmeynaa masaajidaha iyo madrasooyinka ay dadka baahan hadda imaaday insha Allah ta'ala waxaan ka codsanayaa anigoo ah Yacquub Faarax Sahal masaajidkan in wixii tabar ah laga soo qaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba wixii kulli macluumaad ahaa meesha aan joogno maqaamka iyo masaajidka kulli culimada iga horeysay baa ka warantay kaliya ani waxaan ku darayaa masaajidka inaad ka soo qayb qaadataan insha Allah ta'ala tasban xoojinaya ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ruux walba wixii uu sadaqaystay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ogyahay runtii wixii uu niyeystana ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siinaya ilaahay wuxuu leeyahay wama tunfiqu min khayrin ya'lamuhu Allah wixii aad nafaqaysataan aad bixisaan oo khayr ah ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ogyahay marka walaalayaal ilaahay ha idin cizeeyo ha idin sharfo kulli baahida maanta waad garanaysaan muslimiinta waxa kaliya ay isku caawin karaan waxay tahay iyaga inay isku tashadaan ma jirto cid kale u maqan ilaahay subhanahu wa ta'ala mooye marka masaajidadan wuxuu ka tirsan yahay meelaha maanta oo ka raba muslimiinta inay u soo gargaaraan iyo gurmud baa leedan ka raba aad iyo aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh $20,000 an dhimanta 23,000 gadli dad intaas muslimiin abiin lan haleenku ma lahayna dadka muslimiinta oo ilaahay jeel oo beedka alla jeel yalla bahan antoon hatan abada waxaynoon haana soo kalo ama arabti roogay mise ingiriiska roogay mise ameerika roogay ama yurubta kale roogay aba sheena mayan abadaana beedka allan abadaana masiibada min jarta itigee jartaba in ilaahay siin ku aymi ki gaalada dhati roogan alla ka aymi ki dalka roogan alla ka aymi muslimiinta yaan abada waxayna aadin iyo awkin in wal alla batan sadaga indibtan beeytulaahigun oo hatta dhismiis inta roogda bil 30 shay hatta dhismidi noo surunti una tabarna qobatay iseenka qayleysay waxayna walaalayaalow gurugni la dhismaastira seen du'aayane ilaahi wiina waahide adduunki aakhirab seenka barakaay iimankin iyo ibaadin allahi aqbala qalbigin iyo qabrigin ba allahi aftiimi ilaahi wiina waahide may seen ku tawgana masiibada geejarta inta seen ku qabada tan hamiin jartana seen ku qabada aamintaani aaminti malaa'igdina alla kulmay aamintaani aaminti malaa'igdina alla kulmay
دعائنا بيتكم للإستان مسلمين تتني أبا شسين أن إلهي درسيسا سين كأبدا هايني